Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan saaxiibadeyda kanaalka ku xidhan. Ugu horreyntii waxaan u mahadnaqayaa intii fiidiyoga hore la socotay. Kuwa hadda nagu soo biirina waxaan idin leenahay soo dhawaada saaxiibayaal. Haddaan sii guda galno kanaalkeena ama warbixinteenii taxanaha inoo ahayd. Warbixintan waxaa soo turjumay anigoo ah Maxamed Aadam, waxaana kasoo xigtay Dr. Madam Kataria oo ah founder Club Laughter oo ah club lagu qoslo oo ku yaala Mumbai, Hindiya. Haddaan sii guda galno mawduuceennii aadka muhiimka u ahaa, wuxuu inoo mariyay qodobka afraad. Qodobka shanaad, Elevated bronchitis and asthma wuxuu yareeyaa caabuqa ku dhaca tiyuubiska geeya lungs-ka hawada, iyo sidoo kale asthma ama xiiqda. Qosolku waa mid ka mid ah jimicsiyada ugu fiican ee loogu talagalay dadka qaba cudurrada neefta ama cudurrada sambabada. Wuxuu hagaajiyaa awoodda sambabada iyo heerka oksijiinta dhiigga. Dhakhaatiirtu waxay ku taliyaan jimicsiga iyo qosolka si ay uga soo saaraan xabka iyo dheecaanka yaalla marinnada neefta. Daaweynta qosolka ayaa kordhisa heerka antibody-ga ee marinnada neefta, iyadoo yareynaysa soo noqnoqoshada cudurrada ku dhaca feedhaha. Wuxuu kaloo nadiifiyaa marinnada hawada. Qodobkiina shanaad, Interperson relationship wuxuu kaloo hagaajiyaa xiriirka shaqsiyeed ee kala dhexeeya dadka, iyadoo kuu sahlaysa in dadka shaqadu idinka dhaxayso ama faamiliga ay si fudud u ogaan karaan dhibkaaga. Sidoo kale wuxuu ka hortagaa walwalka, diiqada, iyo jahawareerka iyo hurdo la'aanta. Halkaas waxaa inoogu soo dhammaaday mawduuceennii ku saabsanaa qosolka iyo faa'iidadiisa caafimaadka. Fadlan hadduu ku qanciyay muuqaalkan, ku dhufo like, share iyo subscribe. Waa mahadsantihiin dhammaan.